السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هلكن كسلامينا دمان أمد الصوماليات يقومية ورمضة ملكستو الدنيا الدافع هذا أوغنو ليهين ما أنتو تاريخ ضتهاي أفري طبنك بيش السجالات لبدا كون يتضبي طبنك وحن كسو قلنا هي تي في جوين أمني أورومو ميديا نتورك أو أنو ربنو إن أنو كفلن قينو أرمها الصومالي يكسو عصبونا هذه قومية ورمضة هلكاسو أن ربنو إن أنو ستوسو أوغا هذا المشاع لبدا الشعب دنا هو جود isla markaasna waxaa maanta igula sugan stuudiyahan Omni fanaanka weyn ee Mukhtaar Adeero ama Mukhtaar Oromo iyo anigoo dhammaantiin bay taqaanaan mahad in Adeero kana soo kala jeedno Oromo iyo Soomaali anu waxaan iraahdaa Oromada iyo Soomaalida waa isku mid laakiin waxaan rabnaa labada qowmiyadood baahida ay isku qabaan waxa ka dhaxeeya dhibaatadan soo korortay meesha ay ka timid waxa ka dambaysa iyo cadaawaha Itoobiya oo raba inay labada qowmiyadood isku baaba'aan haddaba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan nala daawada barnaamijka maanta waxaa ila fadhiya Mukhtaar waxaan rabaa inaan Mukhtaar iyo aniga ka sheekaysano idinkuna aad daawataan runtiina aan falanqeyno dhabta waxa meesha ka socda bismillaahir rahmaanir Mukhtaar soo dhow waa dhow mahad aad baad u tahay aad baan ugu faraxsanahay anoo ku hadlayo waa magaca Oromada qowmiyadda Oromada hadda sanadkan waan ku hadlayo qowmiyadda waxaa Soomaalida inaan aniga meesha soo nimaadno oo kala hadalno waxaa la dhahay danta guud ee Oromada iyo Soomaalida iyo dhibka hadda ka jira Soomaalida iyo Oromada ka dhaxmarayo nin fanaano qaali ah tahay oo bulshada aad u soo shaqeeyo aad baad u maasantay mahad waa dhawaan Mukhtaar horta dib markaan u jaleecno xiriirka soo jireenka ah intii ay jirtay Oromo iyo Soomaali ka dhaxeeyay wuxuu ahaa xiriir rabbaani ah kaasoo ku salaysan mid diin dhaqan iyo siyaasadba intii aanu garaadsanay ama aan ka warqabnay wax carqalad ah ama dhib ah labada qowmiyadood runtii sooma dhaxmarin taasina waxaa keentay ogaanshaha ay og yihiin waxa ka dhaxeeya labada qowmiyadood
waxyaalaha biniaadanka isu keena oo runtii walaaleeya waxaa kamid ah xuduudada, waxaa kamid ah diinta, waxaa kamid ah dhaqanka, iyo waxaa kamid ah cadowga midka oo ay wada leeyihiin. maxaad is leedahay kusoo kordhay labada qowmiyadood ayaantan dambe? anugu kolley waxaan ka warqabaa qeybteedan ka hadli doonaa, marka bal adiga maadaama aad tahay nin indheergarad ah, nin siyaasi ah, nin fanaan ah, nin muwaadin ah, kana soo jeeda qowmiyadda oromada, islamarkaasna sida aan ka warqabo noloshaada aad kusoo kortay Soomaaliya qeyb ka mid ah, waxaan rabaa inaad bal afka Soomaaligaana noogu macnayso, inkastoo aad si fiican u taqaan Soomaaliya, aad kusoo kortay iskuul ka soo dhigatay, bal dhibka jira iyo sida aanu labadeena bulshadood ee macaan uga dhaadhicin karno sidii looga bixi lahaa juhdigan iyo problemkan soo food saaray. maad maasantahay, aad iyo aad maasantahay. saas sheegtay waaye, Soomaalida iyo Oromada dad dirisa waaye oo wax badan wadaago, especially borderka, xuduudda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha. waxaa jira waxyaaba badan oo kheyraada kasoo baxa dhulka Oromada oo loo diro dhulka Soomaalida, bacamishtariyaal badan oo Soomaaliya oo qalab China ahaato ama America Carabaha ka keeno oo Oromada ka gado. marka waa isku dhex jirnaa, boqolkiiba 70 waan dhihi karaa luqadda isku dhowdahay, dhaqanka guurkeena saan kala guursano waa isku dhow yahay, sida geedka u fadhiisano wax oo difference mu arkaan haddaan nin Soomaali arkaynaan iyo haddaan Oromo arko aan isku mid lahaa. weligeed ma ka dhacin Oromo iyo Soomaali dagaasho. waa jiraan qabiilo oo xuduudda saaran oo ceelasha biyo isku dagaalaan, waxaas waa maana la waay wax oo tan hadda camal maaha. tan waxaa ka dambeeyey dowladda Ethiopia. dowladda Ethiopia saado hurtaba 2 years ago, 2 sano ka hor waxaa bilaabay barnaamij oo Oromo sameysay corner to corner everywhere oo ay ka sameeyeen Ethiopia oo la dagaalamayaan dowladda federaalka Ethiopia inaan xaq ku dhaqmaynin ee Oromada cadaadid ku hayso. gobolada barnaamijkaas ka dhacay waa kuwe? waa gobolada Oromada kaliya waaye. Oromada marka waxaa dhacay ma had dhalinyarada kacday, hooyooyinkii, aabayaashii, gabdhihii wax dhanna kaceen, dowladda Ethiopia oo sheegalaysa. adduunka dhanna ka kaceen, barnaamij badan la sameeyey, dagaalo la sameeyey, dad badan ay dileen, iyagana waa laga dilay. marka dowladda federaalkaas haynay, marka adduunka waxay saareen waxay saareen dowladda Ethiopia inay dadkan Oromada leeshiyaan. dowladda Ethiopia waxay rabtaa inay ka dhigto action-kan hadda socdo oo ka dhex socdo Oromada iyo Ethiopia, inay rabaan inay bedelaan Soomaali iyo Oromo iyo Afar iyo Oromo inay ka dhigaan adduunka u sheegada umar naga dhexaysaba si ay u hirgasho danaha gaarka. midda kale energy-ga Oromada ku jirto oo dagaalka ku jiro ee xooggan ku jiro, inay maadaama u sii jeedaan dhinaca Addis Ababa inay usoo jeedaan dhinaca Soomaalida. iyaga waxay u tahay maxaa la dhahay wax weyn u tahay, faa'iido weyn ugu jirto. haddaba dagaalamaan iyagoo u jeedo ayay Oromo waxay dishaa Soomaali, iyagoo u jeedaan Soomaali Oromo disho, dowladan ay ku dhahaan because waxay ugu talagaleen waa cadowgan cadow weligii soo jiray waaye. cadow oo Soomaalida hore taqaani waaye, arano generation hadda ma aqaani. Soomaaliga markaan arko wuxuu ku dhahaa maxaa tahay hadduu ku xanaaqo nacay ku qabi jiray cadownada isku mid buu ka ahaa. laakiin hadda waxaa aragtaa Soomaali badan u dhexayso wadamada darisadeena, walaaladeena. Oromada waxay ka dhaadhiciyeen dadkan Ethiopiaanku, dadkaas Oromada waa badan yihiin, haddii dhulkan yimaadaan, haddii Addis Ababa qabsadaan, Soomaali already waa joogaan, waa ka shaqaystaan, waddankan waa qaadan doonaan. that's lie, been waaya mahad. Soomaaliya dadka hadda haysto dhaqaalaha Soomaaliya oo tubada ugu jirto iyo siyaasadahan Ethiopian waaye. weligeed ma la maqlin deked Soomaali leedahay inuu 19% oo burbura qaato. Oromo waxaas dhan shaqo muqlo dad iska xamaasho waaye oo shaqaysto ama Sacuudiga u socdo oo doonta qaadanayo. marka dhib isku maanaan hayn jirin, waa kala guursanay inoo seediyaan nahay, waa abtiyaan isku nahay. dhibka waxa ka dambeeyay diin baa ka dhaxaysa. dhibka waxa wato dowladda Ethiopiaanka. Ethiopiaankuna waxay gaareen, waxay soo adeegsadeen madaxweynaha kilka Soomaalida Cabdi Ilay inta ku siiyeen waa nin daacad u ah dowladda Ethiopia nidaas isaga soo adeegsadeen. marka Soomaalida badan ma yaqaanaan, intii taqaanto oo wax garada badan waxay arkaan Oromo Soomaali Oromo dishay taas la arkaan.
wardiloog waxaa ka horreeyey waxaan yaa keenay xagee ka soo kacday meesh yaa wato in mahad la dhahayd I hope inay Soomaalida fahmi doonaan discussionka waxaan sameynaa in dadku midnimadoodii walaalnimadoodii iyo dhaqankoodii diintoodii siday isku ahaan jireen inay wataan midda kale Soomaaliya kusoo kortay runtaa waaye Soomaaliya waxaan tagay aniga anoo laba jira ma aqoonin markaan sportina laba sano jira markaan sportina ahay muxtaar ahay Hargeysa la soo arkay exactly adiga markaad qof nool inaad tahay Hargeysa la soo arkay kadib la sheegay orwa taala dhaay korka marka niyo Soomaaliya markaan tagay aniga wadan markaan soo koray iskuul aaday dugsi quraan aaday Soomaaliya la aaday waxde nin shishees ku markay jireen nin part of wax ku arkay jiray shacabka kamid ah afkooda ku hadla walaalada ku kamid waxay ku jireen ciidamo Soomaaliya ku jireen wadanka Soomaaliya difaacayeen aniga every day aan jiray Soomaaliya toosoo aqal jiray marka waxaan u arkaa wadan waxaan u arkaa inuu wadan degdegay caamal laakiin politically maaha inaan wadankaas qabsado xukuumaha waxaan ka wadaa wadan comfortable ku ahay iyo dadan comfortable ku ahay inaan la dhaqmo buu ahaa marka Soomaaliyadii hore aan aqaanay iyo Soomaalidan mid maaha waa mahadsantahay waa runtii sida aad ka warqabtaanba maanta waxaanu ka falanqeynaynaa danaha guud ee ka dhexeeya labada shacab islaamka ah xuduudaha wadaaga halka cadow iskale ee Ethiopia waxaan rabnaa marka in aanu ogaano maxaa soo kordhay waa su'aal da'weyn oo madaxa daalinaysa walaalayaal aniga oo mahadin dhadeera isla markaasna ah Soomaali markii aan idin sheego waxaan runtii anigu ahay Oromo qofka Oromagaana waa Soomaali sababtaan saa u leeyahay waxa weeye masaajid baan ku wada tukanaa hal dhaqan baan leenahay taas waxaa ka sii daran hal cadow baan leenahay siyaasadan taliskan macangaga ee maataleyska ee Ethiopia waxa uu runtii damcay wuxuu la soo baxay siyaasad cusub siyaasadaas oo ah inuu iska horkeeno dadka islaamka ah meeshaas degan uu dhibka ku hayay boqolaalka sano oo ay kamid yihiin Soomaalida iyo Oromada maxaa dhibaato ah oo ka imaan kara maadaama Soomaalida 27 sano ay ku jirtay juhdigaas iyo wareerkaasna 99% adduunku uu isticmaalay Ethiopia hadda arintan nagu soo kordhay ee dadka walaalaheena oo aan wada ashahaadano saliga ku wada tukano calaaqaadka soo jireenka aan lahayn oo aan nala kala aqoon oo Oromo iyo Soomaaliya in la iska horkeeno fursadda ay Ethiopia ama faa'iidada ay ka helayso maxay tahay maxaasa kulmiyay waxyaabo badan oo maanta socdo aan dib uga hadli doono iyo arintan maxaa kulmiyay marka dhibka ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed ku dhici kara iyo Oromada Muxtaaro haddii dagaalkani uu noqdo dagaal sii fogaada muxuu noqon karaa waxaas dad ba ku dhiman doono experience waxaan ku leeyahay dhulka Soomaaliya dagaalka socda ka hor dagaal sokeeya ka bilaabmay shisheeye ku jirin waxaa isdagaalay laba qabiil oo major laba qabiil oo dhashaas dagaalay waxa ku sameeyay arad sax weey waa laga soo kabsan waayay sax weey macdalla markii laba nation oo ka dagaalaan oo shacab oo haddii dagaalaan waxaan u jeedaa tuusi camal ma soo nimankii la dhijiray Rwanda camal in dadka isqa qalaan ay iman kartaa sax weey laakiin waxa ka weyn haddaad albaab kala fiirisid oo dhinac kale fiirisid war dhibka anaga isku hayno maxaa waaye maxaa isku haysanaa waxa ma jiraan wax isku haysanaa jiraan waxaan jambal la turo waaye niman baa isku keenay niman cadowgeena iyo cadowga isku lawaa nimankan Soomaaliya jooga maanta meel walba jooga Soomaaliya ka joogaan waxay wada ka samaysan Soomaaliya awal Ethiopia kali ku adanayeen oo waxay haysteen Oromadan dhulkan ay haysteen ee dadkan kililka shanaad degan Soomaaliya galbeed laakiin distan ma waxa joogaan dhulkii waxa joogaan Soomaaliya la jiray oo calanka buluug lahaa iyaga daaqo waa sax iyaga qorigooda wataan kuma jiro iyaga qorigooda wataan askarigoodii uu wato buu intuu Hargeysa uu shoob soo baxaa dikadii buu ruux ku sheegtaa annaka dan nagu ma jirto inaan Oromo iyo Soomaali dagaalno laba qof oo qabatay iyo maxaa la dhahay dad ceys ku dagaalay waxaas easy waay laakiin tan waa macnaha Ethiopia waxay qarka u saaran tahay in ay burburto siyaasadda Ethiopia
waxay qarka u saaran tahay inay burburto. Ethiopia is on a verge of collapse. weak waay waa very weak today. Ethiopian dream waa in Soomaaliya iyo Oromo ay isqabsadaan. So that way international community-ga inay u sheegto dhibkan maanta jira ma aha mid annaga naga socday, waa mid dadkan ka socda. waa hagaag. maxaa marka ku habboon in dadka ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Oromada maadaama aanu ka dhalanay labadeen isku midna nahay, saaxiiban nahay, sidaas ay saaxiib u yihiin dadka Soomaaliya jooga dalka gudihiisa, waxaa wanaagsan inay dadku arkaan in arinta tani ay tahay political creation oo la create garay. Problemkan dagaaladu waa kuwa ku bilowda dhul iyo something like that, laakiin dagaalka kani waa dagaal la create garay because waxaan ogahay in Oromadu ay ka mid tahay awoodaha ugu waaweyn ay ka baqdo Ethiopia. waxaan ogahay Oromadu inay tahay awoodda kaliya ee la dagaashay Ethiopia. waxaan ogahay Oromadu inay tahay Ethiopia ciidamada ay ka baqaan inay tahay. waxay rabaan marka maadaama ay Ethiopia soo dhaxgalay burbur, ummadda Soomaaliyeedna ay aad u foojigan tahay maanta, in ay isku dhuftaan si ay week u noqoto Oromada, Soomaalidana week u noqoto, Ethiopiana ay siyaasadeedii guracneed ee mugdiga ahayd ay sii hor kacdo. marka message-ka aniga adigu maanta aanu bixinayn waxay tahay, aniga personal waxaan leeyahay intii dhimatay waa dhimatay, Allah u naxariisto. ninka Oromada iyo ninka Soomaaliga oo qori qaato nin Oromaa dilo, ninka Oromada oo qori qaato nin Soomaaliya dan waa dambiile. waxba kama helayo. waxaan rabnaa marka inaan sameyno in ummadda Soomaaliyeed iyo nationka qowmiyadda Oromada inta isu yimaadaan inay danahooda gaara ka wada hadlaan. waa su-aal da'weyn oo madax daalinaysa maxaa ka dhexeeya. hadalkeenan ku bilownay wuxuu ahaa hal cadow bay leeyihin. cadowgaasna waa Ethiopia. Ethiopia waa qowmiyado la isu keenay, laakiin waxay haysataa waa gumayste soo jireen ah oo 100 sano soo jiray. maanta Oromo awood bay yeelatay, waxay rabtaa inay iska celiso. maanta Soomaali magaalada Muqdisho ilaa iyo Ras Kamboni iyo Ras Caseer waxay ogaatay maanta in Ethiopia ay Soomaaliya haysato, in ay kacaan. teeda kale su-aasha annagu aan rabno inaanu ka hadalno hadda isweydiinayno waxa weeye, wiig ka hor ilaa iyo hadda 3 wiig ka hor waxaa la qabtay Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ah mujaahid ka mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed dalka u soo dagaalamay kuna soo dhaawacmay 1977. waxaa dhacday in Cabdikariin Qalbi Dhagax caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho laga watay, taasoo runtii ku xadgudbaysa international law, sharci diimeed, sharci dhaqan, sharci dal. waa muwaadin Soomaaliyeed in meesha laga wato. halkaas waxaa ka dhacay marka in shacabkii Soomaaliyeed ay kaceen, isla markaasna ay ogaadeen in Ethiopia ay gumaysato Soomaaliya oo madaxda Soomaaliya ay farta ugu wacdo. marka maadaama ay Ethiopia ogaatay, maxaa kulansiiyey marka qabashadii Cabdikariin, kacdoonkii shacabka Soomaaliyeed iyo in la iska hor keeno qowmiyadda Oromada ee walaalaha aan nahay iyo ummadda Soomaaliyeed. ma is leedahay meeshaas waxbaa ka socda? waxaa isku keenan ku sheegaa ma anaga waxaan soo bilaabnay 2 sano ka hor soo bilaabnay shakadan. 2 sano ka hor ayaa la bilaabay. okay. marka last waxaan sameynay week kan Ethiopia waa daalinay economically, waa daalinay dadkii bacashirada dhan bacashir ka joojiyeen. maxaa la dhahay Ethiopia in kama soo gali waayay, hoteeladoodii waa weynaa cid ma seexato because it's not safe. صح. gawaaridooda diyaaradihii la raaci jiray ma jiraan. صح. wadanka wax kana week. صح. dad baa naga dhata laakiin we made them weak. صح. annagoo nimankan ka daalinay oo rabaan inay yusgareeyaan Soomaalida iyo afarta kuwa degan nacboonta degan inta ay haystaan iyagoo rabaan inay yusgareeyaan baa Cabdikariin hadda markii uu la qabtay ay xamar ka haystaan ninka wadanka u dhashay airportkiisa inta laga soo kaxeeyay saabay keensadeen. way ogyihiin shacabku inuu kaci doono. yes. shacabku markuu kaco waxaa la rabaa shacabka in busy laga dhigo oo homework la siiyo. aad iyo aad. hadda shacabkii shalay dhahay Cabdikariin la qabtay waa la kaxaystay, maanta waxa ka hadlaya Oromana leys ya waxa la dhawaa lilaba wad warwadi aad saabku cararaysa dhayratina meesha qabsato هذا واحد بيزكين محل ده صومالي أنا قاعد مختار هان وحن عبارين يا نمك أورمدا وجيستي لك وجيستي ولا لا صومالي ده يجوا ونوقف كنا لك هذا
waxay u geysteen aad iyo aad u cambeeranayaa hadda ka horna waan sheegnay xalana xitaa waa wacnay nimankii in la qabto waaye in geed la geeyo waa nimankaas waa no doubt at the same time soomaalida nimankaas ormada masaakiinta oo dhulkaas ku marayaan oo shaqaysanayaan dilayaan especially Hargeysa xalay waxaa lagu dilay 2 qof xalay magaalada Hargeysa 2 qof wiil rag bay aaminsan rag baahan habeen barbaa la dilay waxaana dilay booliska Hargeysa dilay booliska waxaa dilay Somaliland marka waxyaabaas dhan waa kasoo jeeda aan baranayna waa qalad ilaahay ha tusiyo Soomaalida ilaahay ha tusiyo inay ormada walaalada yihiin ormadan Allah ha tusiyo inay maxaa la dhahay walaalada yihiin laakiin warbixinaan ka helay xalay Boorame magaalada Boorame aad baan ugu farxay odayaashii iyo nimankii muwaadiniinta ay soo baxeen inay jambalkan dhibkan dhan inay dawladda Itoobiya keentay inay sheegeen ay dhaheen niyo waxay naga dhinteen Allah naxariisto waa ka hadlana taas laakiin waxaan iyana hore u soconin dhibka ayuuna fidin walaalana ay dhaheen aad baan ugu hambaleynayaa nimankaas magaalada Boorame xalay salaadiintii culimmadaankii marka ina saas weyn waa dad dhamal ka dhacday waxay ka dhacday maxaa la dhahay Adama waxay ka dhacday Saab xalay soo meel walba waxa loo yahay cambareen dad waxa jira fudeed oo waxaan fahmi karin marka waxaan rabaa inaan u sheego dadka TV-gan oo ay min daawanayo ama arkayo share gareeya hadda social media ku aragtaan dadka u sheega inuunan dhib naga dhaxaynin waxaan isku haysanaa aanay jirin dhul ma kala haysano dad baanan kala dilin annaka yaa dhibna haysto dagaal baan waxaan ku haynaa Ethiopian marka Ethiopianka ma hado annaga cunaha qabanayno waxaan dhahnaa Soomaalida lugahan qabanayna haddaan caawin kari weydaan because dawlad ma tihiin idinka yaa dhibada haysto just fiirsada leh wagaag Mukhtaar wuxuu runtii noo sheegay wax cusub oo ah in 2 qof oo dhalinyaro ah oo Oromo lagu dilay xalay saqdii dhexe magaalo weynta Hargeysa runtii aniga oo mahad indhadeeraha iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed sida aan la qabo arintaas waa arin qaldan wey waa arin aan fiicnayn waa arin aan lagu aqoon ummadda Soomaaliyeed waa arin aan lagu aqoon shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay sababta maxaa yeelay dagaal baadiye ka dhacay oo sida uu u dhacay aan laga warqabin oo sida aan u sharaxeeno ay ka dambeeyaan taliska macangaga matalayska Ethiopia in ummadda Soomaaliyeed ee Oromo la iska horkeeno waxaan ogahay xawaaladaha Soomaalida ay leedahay ka ganacsato in boqolkiiba ka badan 30 ay isticmaalaan qowmiyadda Oromada ay ku nool diasporada iyo dalka gudihiisa waxaan ogahay in 2 qowmiyadood ay isku nool yihiin haddii ay noqon lahayd laborka haddii ay noqon lahayd dhan kastaba waxaasoo dhan isu keenidda waxaa ka weyn qof marti ku ah oo muslim ah oo dalkaaga yimid in aad disho oo aad ku disho wax aadan hubin shakhsigaasi waa ahlu naar waana la rogayaa dhaqanna uma laha ummadda Soomaaliyeed in ay dilaan qof walaalkood ah oo marti u ah meel kastaba ha ka yimaade qaas ahaan qowmiyadda Oromo oo anigu aan rajadeyda ay tahay mustaqbalka inaanu ka guul gaari doono taliskan matalayska Ethiopia in qowmiyadda Oromo cariiri ama pressure lagu geliyo waxaan la hadlahayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan u mahad celinayaa Mukhtaar oo iyo intii ka shaqeynaysaba gacan ku dhiiglayaashii dilay dadka Soomaaliyeed in la soo qabto geed lagu xiro sababta aan saa u leeyahay walaalayaal waxa weeyaan waa siyaasad qoto dheer weeye arinta la isaga horkeenayo Oromada iyo Soomaalida waa siyaasad dib u dhac ku ridi karta ciidanka awoodda leh ee Oromo ee raba inay cadowga baaciyaan isla markaasna siyaasadan matalayska ay soo jireenka Ethiopia ay dhunta ku dhuftaan waa siyaasad dib u dhigi karta hoggaankeena ummadda Soomaaliyeed inay ka hoos baxaan taliska macangaga iyo gabre iyo wax la mid ah haddaba markaanu dib ugu soo noqono arrimaha Oromo iyo Soomaali waxaanu su'aal weydiin doonaa Mukhtaar waana ka weydiin doonaa sidee yahay xiriirka u dhaxeeya ummadda Oromo iyo Soomaaliya markii dibadda la dhaho markii laga soo tago dibadda magaalooyinkan mataanaha masaajid ma ku wada tukanaa bacmushtar ma wada wadaagnaa
walaalo ma nahay ma isgarabsanaa mukhtaar see u aragtaa adigu arrimahaas ma asaa sheegta waaye soomaalida iyo oromada ani waxaan tegay waddanka la dhaho Kenya xaafad waxaa jirto isla dhahaan oo degan yihiin soomaalidu iyo oromadu oo degan yihiin le waa soo baxay Yurub waa London same lawa meel ay Soomaali degan tahay ama Oromo degan tahay moolasha soomaalida waxaa ku arkaysaa nin Oromo waxaa arkaysaa baashi amxaar ma ku arkaysid tigreed ma ku arkaysid walaal ma ku arkaysid bulshada ma ku arkaysid dadkan dad kala maarmo maaha dhinaca fanka hadda fanaan bada Soomaaliya ninka xataa waliba magaaladan ku bartay oo muusiga Soomaalida soo geliya tahay aad maastay fanaaniinta Soomaalida waxay awoodaan inay helaan niman bulshada oo amxaaran magaalada degan but they suggest me inaan nagala shaqeeyo waxaan xasuustaa hadda kahor Ilays koox la dhaho Soomaaliya inaan tuur u raacay Soomaaliya waxaan arkaa dad maxaa la dhahay ciddiinay camal marka Soomaalida diaspora joogto nimo waxa waaye walaalaha waaye buuq ma qarax dhaco waa wada bacmitirsadaan xawaaladooda isku mid waaye soo hadda in waxa ka wada Soomaalida iyo Oromadu dhib iskuma hayaan banaankan wahagaag daawadayaal sida aad ka warqabtaanba waxaanu ka hadlaynay labada qowmiyadood ee Soomaaliya iyo Ethiopia waxa ka dhaxeeya maxay runtii wadaagaan waxaanu soo dhiraandhirinay inay wadaagaan inay leeyihiin hal cadow inay runtii ay hal masaajid ku wada tukadaan oo hal diin leeyihiin hal dhaqan inay leeyihiin dad aan la kala aqoon inay yihiin waxaasoo dhan waxaa ka daran taliska macangaga ee maatalayska Ethiopia oo runtii muddo badan la soo dagaalamay ku dhawaad 100 sano Oromo qowmiyadda Oromo iyo Soomaali inuu maanta door biday inuu iska hor keeno qowmiyadda Oromo iyo Soomaali si uu loo hilmaamo falalka argagixisada ee maalin kasta uu sameeyo sida aad ka warqabtaanba 3 wiig ee la soo dhaafay Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa mujaahid u soo dagaalamay ummadda Soomaaliyeed sanadkii 1977 isla markaasna ku dhaawacmay kana mid noqday jabhadda xoreynta Ogaadeniya oo NLF isla markaasna ahaa nin markastaaba u taagan xoreynta ummadda Soomaaliyeed in laga qabtay lagana gudbiyay caasimadda Soomaaliya taasoo ay ummadda Soomaaliyeed ka sameysay kacdoonkaasoo ay ku baraarugeen in ay Ethiopia yihiin dalkooda kuwa haysta sidaa darteed ayaa waxaa bilaabatay in la bilaabay in la iska horkeeno qowmiyadda Soomaaliya iyo qowmiyadda Oromada aniga iyo Mukhtaar Adeero oo maanta runtii falanqeynayna waxaanu runtii leenahay isla markaasna halkan goobaabo iyo waano iyo hadal iyo aqli celinba uga soo gudbinaynaa bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada Oromada inta af Soomaaliga ku hadasha meel kasta ay joogaan Soomaalida iyo Oromadu waa mataane iyo walaalo laakiin waxaan idin leenahay magacu waa lama huraan waxa aad leedihiin hal cadow waxa aad leedihiin hal diin waxa aad leedihiin hal dhaqan haddaba meel kasta aad joogtaanba waxaan runtii ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii aniga oo mahad indho deera waxaan iga dambeyn doona Mukhtaar waxaan idin leeyahay walaalayaal ka fiirsada danahiina guud halka cadow ay leedihiin waa Ethiopia caruurtiina iyo maatadiina u taliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Mukhtaar soo gabagabay waxaan rabaa inaan ku xujiyo mahad baad maasan tahay laba farin baan leeyahay nimanka saxaafadda oo social media iyo TV-ga labadan cisho ka dhigay issue weyn oo in Oromo leeyahay dad Soomaali xumaanta wado ha dhaafana leeyahay ha ka shaqeeyaan waxyaabaha wanaaga si dadka la isku keeni lahaa taas saxaafadda waaye nimanka siyaasiyiinta oo Soomaaliya oo u haysta in Ethiopia-ku yihiin niman walaaladooda maaha cadowgooda waa laakiin waa la shaqeysan karaan there's no problem dhibka jiro waxa waaye dadkii wada deganaa kumanaan sano inay nin amxaar iyo nin kale intuu yimaado u tuuro inay qaataan maaha so intaasaa uga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca kale waxaan rabaa inaan u sheego ummadeyda Oromada afaan Soomaaliya soo tiri dhifama innakum mahada jaama walisa Soomaali khamagalan ku no jirato waani hasoo tiri si waay ma amadi ma yirkana waay dangara Oromia fi Soomaali yudura midhama ummada Kenya rageefi kawman Kenya leena dhageysan ka khalad ka saatay khadu fiqana akamiti waan kana fidna yanad bachature nuti yakume neti Soomaaliyo jin tilmaano wada
Soomaali jira kan qabnu saanoo joololaa jirru mootummaa jaartuu joololaa jirra ni beeynaasi ammallee ni beeyna akka xalaata kanyaa fi jechuun adawii kanyaa ni beeyna nuti. Kanaaf wanti na dubbachaa turre akka Soomaaliin waan kanarraa fayyadee yeroo nuti uummata adawii kanyaa wajjin wal qabaa jiru kana akka miidhaan hin qabne akka nu eeggatanii waan kana dura taameef wanti taamee jira akkamitti fuulduraaf akka wanti kanaa kun hin taamne akkamitti goonaadha galatooma jiraadha. And I would like to speak English through the Oromos that speak English. My name is Mahat. I live in Minneapolis for a while. The reason why I'm here today is I would like to declare peace through the two nations that actually share in terms of religion, in terms of one enemy. They have one enemy who actually that we call or you call Ethiopia. Somali Oromo, they have a long relationship, long actually peaceful relationship. As I said, they have one enemy. My name is Mahat. I love Oromo. I am Somali and Oromo too. And I believe Mukhtar is Somali and Oromo too, as he said that he grew up in Somalia. Most of the Oromos is like that. Most of the Somalis grew up in Oromia. We have one enemy, ladies and gentlemen. The enemy we have is Ethiopia. As you hear or know that we had a political crisis the last 3 weeks, that one Somali hero actually has been handed to Somali government to Ethiopia, which is impossible. In terms of, because of that, the Ethiopian, they created this war, which is going to now in Somalia and Oromia are having a little bit issue. The one thing that I'm here today is we are brother and sister, we are Muslim, we have one enemy, who are Ethiopia. Let's unite, let's together, let's create peace, let's be brother and sister. Inshallah, we will talk more on all of the Oromo people, all of the Somali people. I want to send this message to call Somalia, to call Oromia, to talk to people, to tell that to stop this problem. Ladies and gentlemen, my name is Mahat again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Have a great day. Well, thank you very much. Thanks for coming. Thank you very much. Bargal dushedi bandar bela kula daga
dhistaa mahoygii jacaylkii ame anigoon qabin haween anigoon rabin heestuu iga yeedhaa haween anigoon rabin heestuu iga yeedhaa habeenkii taariikhdee maalintii laaqdee hadba saacaday tahay iyo markii lay helay isku soo hagaagay habeenkii taariikhdee maalintii laaqdee hadba saacaday tahay iyo markii lay helay isku soo hagaagay Bandarbayla kula taga Wabarta ku dalate ya goli bari bargal tushedi Bandarbayla kula taga